dhawaada mar kale barnaamijkii xusuus reeb oo had iyo jeer aanu kaga hadallo sidii hore baanu idinku sheegnay waxyaabaha inoola muuqato inay mudan yihiin taariikh ahaan in looga sheekeeyo iyo dadka had iyo jeer ay noogu muuqato inay hayaan taariikh ama wax dhacay oo loo baahan yahay in laysla ogaado maadaama 60kii sanadood ee ugu dambeeyey wax badani dhaceen maadaama aanay Soomaalidu wax qoran ee dulkahayn taariikhda iyo wixii dhacayba ay yihiin maadaama weliba 40kii sano ugu dambeeyey Soomaalida ay ku dhacday wax adduunyada kale kumanaan sano ka dhaca oo muddada kooban burbur baaba dagaal iyo dhibaatooyin badan ay dhaceen ayaa waxa had iyo jeer barnaamijka aanu ku marti qaadnaa dadkaanu u aragno in aqoon gaar ah ay u leeyihiin waxaan idin hayaa mid ka mid ah raggii udub dhaxaadka u ahaa haddii ay dhibaato tahay iyo hadday dheef tahayba wixii muddooyinkaasi ka dhacay oo u soo fadhiyay dagaalo badan oo dhulka ka dhacay colonel Muuse Biixi Cabdi oo imika siyaasi noqday laakiin anigu maanta waxaan wareysanayaa oo aan ka wareysanayaa noloshiisii militarinimadiisii dagaaladii uu galay iyo waxyaabihii uu ka ogaa wixii arada Soomaalida ka dhacay Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku dhashay kaymaha Faraweyne markuu dhashay Faraweyne ma jirin waan ogahay markii dambe wuxuu ku koray oo ku barbaaray Hargeysa iskuulka ayuu halka ka galay biyo dhacay ayuu dugsiga hoose iyo ka dhaxaba ka dhameystay Amuud ayuu dabadna ka dhameystay 1970kiina waxa loo diray Ruushka oo wuxuu ka mid noqday ciidamadii ama raggii loo tababarayay militariga Soomaaliya waxa uu soo tababartay oo la baray dayuurada bambarka loo yaqaan wax duqeysa inuu garaaco oo waxna duqeeyo ama difaac noqoto ama wax leyn labada mid ay doonte militariga muddo ayuu ahaa ka bacdina isagoo korneyla ayaa haddana loo diray Mareykanka oo culuntaas haddana sii korsado soo maray wuxuu soo joogay dagaaladii dhacay 1985kiina waxa uu ka mid noqday raggii saluugay ama ka soo horjeestay maamulkii dawliga ahaa ee dawladii militariga ahayd waliba ee wadanka haysatay oo yidhi waxay mudan tahay tan in la dagaalamo wuxuu dagaal ku soo qaaday oo ka mid ahaa raggii horseedka ka ahaa weerarka gumaadka iyo dhibaatada weyn dhaliyay ee lagu qaaday dhulkii waqooyiga loo oran jiray gaar ahaan magaalada Hargeysa isaga la fahantiisu wuxuu qoriga u soo qaatay ka horyimi ciidankii uu ka tirsanaa isagoo tagay Ethiopia inuu xagga kale ka soo jeesto oo iyaga laftoodii u qaato in la dagaalamo waxa ay waxyaalo mid ah sababihii ku kalifay wixii dhacay iyo wuxuu goobjoog ka ahaa ayaan weydiin doonaa Muuse barnaamijka ku soo dhaw marka hore ku dhaw intaada hore ee nolosha yaraantaadii iyo ma garanaysaa maxaad ku dari lahaydeen ka tagi horta waxaan ku daraa kornelmada kula weyn aad sheegayso waqti iskaga tagaano waat imka kornelmada oday waan ahayd waa ogahay mugoon intii dabadan waxaan ahaa xaq u dir mujaahid waa sax kornelmadaas waa loo geeyay waa tii la isku seegay loo kala tagay waat militariga aad ku tagtay dee wax kale ku dari maayo noloshaydu waa sida kayntaasaan ku dhashay Faraweyne xag hoose ka xigta Hargeysa oo ku koray inta badan miyigaan u badnaa tayara noloshaydii intii aan korayay geel jira ayaan soo maray ka bacdina magaalada mid iskuul iyo boarding baan soo maray haddana askari baan noqday haddana jabhad baan noqday askariga markaad Ruushka tagtay waxa lagu soo baray ciidanka dayuuradaha Soomaaliya diyaaradda oran jiray L28 oo 3 boqol aan ka haysanay way oo bombara ayaanu ahayn diyaaradda 3 qof baa ku duuli jiray way navigator oo hogaamiyaha anuga soo bartay way dowliyaha iyo nin bambadi hubka rido bahasha ku marka meelaha aad ka shaqeysay مثلا waxaan shaqada ka bilaabay xamar way waxaan duuleynaa maalintii ka guuray laba diyaar xamar isku dhaceen ciidankii guuraya baan ahayn 75kii Allahu naxariista Cabdiraxmaan iyo Axmed Rashiid waxa Rashiid aan isku kooxayeen mar ka wada nimidoon meel wax soo wada baranay ayay ahaayeen way marka koylata ka horkacaysay anigu ka dambeeyay laakiin waxaan ku jiray gobolka ku jiray markaas gacan maalintaas aan Baydhabo guuray Baydhabo waxaan joognay ilaa iyo 2 sano meelaha ka bacdina waxaan ahaa ciidankii lagu furay saldhigga Baledogle taafeed qoladii u horeysay la geeyay oo kulli waxaan malnayaa saldhigyada ugu waaweyn geeska Afrika hadaan u ahayn ba ayuu kamid ah waat halkaas aan joogay ilaa iyo
77kii aanu dagaalkii ka galnay dagaalkii 77kii baanu galnay waay xaggan baarre waa duqeeyey iyo doolo iyo xaggan kabacdina berberaan ugu guuray berberana waanu ka duulay dee jigjiga iyo herar iyo dhulkaa raggii gawda ku hayay baanu ahayn dagaalka 77kii 77 ama 77kii soomaali badan waxay rumaysan tahay inuu kow ka ahaa mushkiladan iyo burburkan dhulka soomaalida ka dhacay iyo dowladdii markaa aynu ka tirsanay adna aad militarigeeda ahayd anna quldhaydu aan shaqaalaha dhinaca kale ka ahaana meelaha ay eeday bay ka mid tahay bal waxaad ka warantaa waxaad ka xasuusato dagaalkaa 77kii sidii loo galay iyo ciidankiina cirku wuxuu ka qayb qaatay ma duqaysay adu meelo ma ka qayb gasho dayuuradaad ma kacday horta qodobka hore arrinta soomaalida burburkeedu kama dhalan 77kii uu ka horreeyey waay anigu waxaa qaba wuxuu ka dhashay dowladdii la dhisay 1960kii waay juulaay dowladdii lagu dhawaaqay ayay ciladu ka dhalatay laba dowladood isu tagaynu ahayn markii la isu tegay heshiis lama saxiixin waxna lama qaybsan dal dhan oo dalkii halku soo bira ay maan waxba la weydiin waay waa ogtahay hawada markii dowladdii laba dal baynu ahno midna ka xoroobay ingiriis midna ka xoroobay talyaani dabeetna markii la isu yimid madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo labada taliya ciidan iyo wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirkii khaarijiga iyo kii daakhiliga iyo kii maaliyadda iyo labadii ciidan intiiba wax meel baa loo mariyey waay goboladiina waxa la gobol ma tihin markii dambaa bariga loo kala saaray markaa is afgaran waago iyo isa seega waqooyiga iyo koonfurta halkaas ka dhacay kasoo bilow halkaa waa kii bar xasan kayd iyo inqilaabka isku dayana la carooday 61kii dee kol waa tii galayga ahayd mar ay cabdi idaan iyo dakhalka dabashay doonidii mar waa ka timi cadal ahaa hargeysa berberdaad kaa qaado dee dareenku kulba af buu ahaa kulba wax kusoo socday 77 dabkii xawal muuse saare soomaaloo dhan baa wada cadhootay markan dambe marka la gaadhay 77 dagaalka qorshihiisi waxaa geli maayo waayo wuxuu ka socday anigu maan ahayn levelka markaa tala goynayay kumaan dhaweyn anigu ciidanka cirka dagaalkiisaan ka warhaya marka ciidankiina cirku masalan dowladahaad lahaydeen iyo awooddaad lahaydeen iyo etoobiya ciidanka cirku inay xagga cirka aada uga xoog badnayd markaad nagama xoog badnayn waay soomaaliya 9 goor ka xoog badnayd waay waxay diyaaradaha ugu casirsan baanu haysanay oo ahayd diyaaradda mig 12 saddexdan diyaaradood bambarkaa aynu ku duulaynay waxaa 3 diyaaradood geeskaba olin xoogooda iyo hubqaadkooda midi tababarkii naga dhacdo badda ku dhacday waay habeen xamar inaad xusteen kara mooyaan waat labadii kale ayaa dagaal ku galayay waxaan xustaa heerkan berigaa joognay afrikada madow wax yar baa joogay waay ilaa 20 diyaaradood ayaanu galab isku xidhnay September 12 baa waay intaanu hargeysa casar ka duulay 20 diyaaradood oo 12 oo codkeeda ka dheeraysan oo 17 leh oo bombar leh oo isku xidhan dowladda afrikaan markaa intay cirka u qajinaysay ma jirto 20 diyaaradood dhibaatada ciidanka cirka way naga waay aragsanaayeen halka wax iska bedeleen waxa weeye ciidanka cirkeenu anagoo diyaaradaha dhowr sano gacanta ku haynay diyaaradda dee weerarka ahayd ee xoog ahayd 12 markaa raggii ku duulay ninka badan 2 sano ku duulay 76 la bilaabay 75 baan bilaabay akhirkiisii iyo bomarteedanba miiga hore loo yaqaan 17 oo rag waay arag ku duulay laakiin waa diyaaradii 17 markaa diyaarada culayska xooga waxa dhaafeenay waxay 12 kana inagoon ka adkaanin ayuu dagaalka curti manu galay dabeetana diyaaradii afka ay wateen ka liitay 17 kala midka ahaa ay wateen Etoobiyaanku ay bilotaashoodu 10 sano ku soo duulayeen dabeetana marka la isku yimaado dhaq fight ka cirka diyaaradii ninkii waa arag ahaa markaaba diyaaradii 12 inuu soo dhawaato aan ahayn oo ka badan oo raadar leh oo ka gataar weyn ayay soo ridiyeen maalufarkaan ahayd iyo xarakada diyaaradaha rag badan naga dhintay diyaaradaha ma soo dhacay qaar buurta duceen kaar marna 2 bilood waan garanaya shideeyeen kale abakar busana abakar xasan Allah yarxam diyaaradaha kalena diyaaradahan Ethiopia kala wada kaadkeen waxay ahayd gacanta bilotayaasha diyaaradahan kooxda waa arag ku ahayd iyo bambarta markaa nagu cusbeed anigu taatirimeed qoysa waxaan duulay in ka badan dhowr iyo 10 soorti waxa weeye waa markii dagaal la qaado hub soortiis way waxaan qatiray hub gaara ilaa 60 dambeena markaa jikjaan garaacnay kaana marna maalintii u dambeysay waxaan waraab arku sanad ku sameynay waxaan garaacay baarri
waxaana garaacay doolow waxaana goyn jiray jidgooyada ciidamadooda si socdo dhan halkee ka guuri jirtay markaa berbera saarkiisa diyaaradan ku martay anigu waxaan doogi jiray berbera diyaaradan diyaarad strategic oo laalayahay wala fogeynaya tiina waxaa nagaga daba yimaadeen maalinta ma waa kuwi berberadee naga goy diyaaradiiba berbera loogu yimiba dawadiga la socday iyadoo oo intaan hubkii ka buuxinay iyo shidaalkii aan ku cid diyaaru nahay oo malaha 3 minutes ay ka harsan tahay ay barta badda ka soo booday anaan ka filan inuu intaa gaaray reejkoodu diyaaradaas ma iska ilaalinayeen bartii ku dhuftay raastii buuba sheekh laga arkay qiiqiya wixii ka dhacay taasaa inuu gudbisay halkaasay tii kale aniga iyo nin kale farax ku dulna waa kuwa ku dhuftay qori anti aircraft chicken naga soo dhuftay hargeysa wanaga jinay iyadoo oo gubanaysa garoonkeeda dhanka waqooyi koonfureed bay u jirtay midna badar ka dhacday saasa dagaal ka socdaan bombarkiiba faraha uga baxay saddexdiiba qalad markaas aad bay u dambeysay xagee lagu geeyay markii dambe ciid arrimaha dibadda joogtay qaybta arrimaha dibadda markii qoladaydi markii saddex diyaaradba saabur bureen de ruushkiina la xeerka waa kii loo gooyay xumaa de marka ciidan ma meesha ka baxo ciidanka bombardierka wana ciidanka ugu hubka ugu culus ee weyn ee wax naafeeya ciidanka cirka u qaaday oo bambuulka waaweyn la dilay iyo haamaha iyo qaadi ha kuwaas ka baqtaan tanaayin waxaan aniga waxaa la bedelay ciidanka cirka waxaa la bedelay xaruntii guud ee kama de xaruntii ciidamada taliskii guud waxaa la geeyey waaxdii arrimaha xiriirka dibadda nin fiican oo aada wanaagsanaa baan noo shaqeyn jiro xayd nin fiican bu ninkaasaanu in badan la shaqeynay halkaa waan ku yaril baxdo waxaad kala baratay meedee dibadda iyo xiriirada iyo waa tii maraykanka loo wareegay waxaan noqday waxaan nasiib yeeshay inaan ka mid noqdo waftigii ugu horreeyay ciidan Soomaaliyeed ee gala Pentagonka xarunta gaashaaniga Mareykanka Cumar Xaaji Maslaan wati aniga la ciise Soofo imika malaha Xaaji soo baa cimshar lacag ay gudbaysay ma sha Allah ayaanu ka mid ahayn kimika bariga ka ahaa ambassador maalmaha waa joogan ugu tagan marka waxaan ahay ciidankii u horreeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee military ee Pentagonka la geeyo ee gaashaaniga Mareykanka la kulma dee markii dambe Mareykanka waan ku noqday koorsooyin bay siiyeen halkaas soo baratay markii hore waxaan soo baranay ciise Sofia ayaan oo diray meel Dayton labadii ugu horreeyay koorsayaan baan kaas koorska aan buha waxaan soo go'nay procurement sida hubka iyo wax loo kala gato oo sharciyo badan iyo leeyihiin xeer badan oo hab marka habkaasina soo bareen tiibana waxay ku shaqeynay markii dambana waxaa la diray course saadka oo ahaa Fort Lee Virginia kaasana laba sano ka soo dhameeyay oo isla saadkii maamulka kaasaan tegay kaas sanad iyo dheeraad ayaa joogtay marka daraj cornel baad gaadhay soo maahayn markii dambe mar mijirba ka tagay olkay kolka anigu jooga Mareykan baa la siiyay gaashaal dhax olkaygii yana la siiyay markii dambe marka aad u eegto misalan gaashaal dhax ka tagay taliskiini ciidanka cirka oo kale rag hore aan wareystay oo ma garanaysaa ciidanka ka mid horta dadka dhulka ugu badan bay hayeen jabhadaha waxa galena ciidanka cirka ugu badnaayeen gaar ahaan SNMta waxay sheegaan dhibaatooyinka dhacay inay ka mid ahayn raggiinii duuliyaasha ahaa iyo in loo keenay qaar ama laga keenay ciidanka lugta ama oo aan ma garanaysaa garanayn dayuuradii waxba tornay maamulkii uu idinka kharimeeyo waxyaalahaasi wax sii xumeeyay ay ka mid ahayd maxaa wax soo xumaanayeen ciidanka cirka markii hore waxaa ka mid ahaa Yusudig piloot waxa marka nin farsamada yaqaana la ciidanka cirku ka duway ciidanka lugta waa farsamo gaara dadku kuma jirto cirka joogta marka ninka wuxuu cirka xaaladda yaqaana oo dawlad kale yaqaan ninka duuliyaha diyaaradda ku duulay jadka markaan duulaynay shaqada waxaan u xisaabanayay 2 sanadood oo halka adigu maalin ka shaqeysaan oo 2 ka shaqeynay ninka haduu duulo xaalad ka duwan waliba diyaaradaha hadii aan kuna ambassador ka ahayn wixii diyaaradda gaara wixii ku duulay xaalad ka duwan buu risk khatarteeda leh hawsheeda leh marka halka toonsan marka aanu shaqeeyo 20 sano ay xisaab 20 sano ku qoran marka ninku waa inuu ilaa duruufaha fahmaya qofkan duulay qofka farsaqaanka dadka hawsha ay dheer yihiin marka Yusuud baa joogo ciidan markii la dhisayay ee deeruushka ee xoog loo dhisay markii siyaasaddu soo galaan galaysay Yusuud ambassador wax laga dhigo waa laga bedelay waxa la keenay nin infantry oo malaha diyaarad ba raacin aqoon iska dhaafay Cabdi Cali waa lagu jir ninkaasi nin
xitaa dadku dee technicalkii kula wanaagsan yihin ha ninkaas markaa wuxuu noo keenay sheeko aan hagaagsanin oo ahun ninku kacaan ma yahay mise maaha waay laa xawla ciidanka curkuna dee in la bolsaas gareeya maaha iyadoon ciidanba aan ahayn haddana waa ciidan ku xidhan qofka xirfadiisa xirfid war waa farsamadu baahnay marka ninkaas uu yimid anigu markaa waa markaanu ka tegeyno anaga diyaaradahagii dee dagaalka ku baaba'een laakiin ciidanka cirku markaas u baaba'ay oo dee sidii loola macaamilay hab bolsaasna duuliyaashii markaa duuliyaashii waa la bedelay dee misana sag waaxyihii operationka ciidanka cirkoo kale waaxii tababarka ninkani waa inuu ama farsamo yaqaan uu mashiinka iyo technicada la garanaya ninkan wax xukumayo ama waa inuu nin duula yaho ama uu duuliye yahay ama navigator ama de wax lamida uu fahmaya cirkii iyo xaaladiisii iyo diyaaradii marka labada midnaan ahayn dee laga buuxiyey waaxyihii oo loo ogaya kacaanka magaalinaya tawasud weysaa meesha marka kacaano dawladda duuli way noqotay gadood rayidka iyo militariga iyo cid walba saameeyey baa sideetamiyadii dalka ka bilaabmay oo lagu diidan yahay taliska oo masalan hadday ka soo qaadno markii dagaalkaas 77kii la galay 78kii waa lasoo jabay dabeedna inqilaab isu dayay taana waxay sii waxaysay ma garanaysaa sheekadii halkii markii hore ay taalay markii dambena markii gobolada mudug ay sheekadu ka bilaabantay haddana waxay ka bilaabantay goboladii waqooyiga culeyskaas maxaad ka xasuusataa sheekooyinka intii militariga ahayd maaha ile waxaad ahayd nin odayaho aadba dhulka wax ku lahaayoo joogay kacdoonada iyo saluugaad ma garanaysaa dadka galay siday u bilaabmeen horta markii hore dagaalka jib baa lagu wada galay markii hore dadku dagaalka jibbaysa dalkan xoreyna waa lagu wada galay markii dalka xooggiisa la galay la maraya dhagax buur iyo jigjiga iyo ayaa waxa soo baxay phenomena khilaafa oo siyaad bare iyo qolada jabhadaha ahaa ee liberation armiga ahaa ila waa tiran waa anagoo diyaarad wadano dagaalka muddo adigo gacanta ka leeyahay aad jirtay war ku sheeg jirtay ilaahay yaabi jiray gobernador ka dowladda wata ha bambar anagoo toban khataro soo galay oo calankana ku soo wareeyahay marka qoladii jabhadaha ahayd dee waxay u qaatay xorriyadii iyo awooddii gaaray lawatan caalamka leeyahay idaacadii radio muqdisho aan hayden jabhadii halkaa gaaray markii maamulka la isugu tegay dowladdii siyaad bare ee wateen waxay dhacday meesha dheer maamusho horta khilaaf baa dhacay waay khilaafyada maamulada anigu xoogay lawana ninkaa cer ka dagaalamayaan ahaa ee kolkaa halkaa guux baa ka dhacay iyo iskhilaaf soo jabidana ciidan ahaan mayna soo jabin siyaasi mayna soo jabin ruushkaa diiday ori ka noqdo sidaan taariikh ku hayo oo maxamed siyaad bare si cad u yidhi noowey waxaa lii sheegay xitaa wafdi mar la kaxeeyo inta mooska la geeyey uli anigu kuma jiro oo lasoo saraakiishii iyo taangiyadii iyo hebreebe oo jigjiga maraya oo dir dheer maraya galaaloo midho halkaa ka ya iyo carayli oo diyaaradii ciidanka cirka sawirkii iyo diyaaraddii nambarkeedii mid walba la yidhi waa kan deeta waa tii ruushku nagu dhaqaajiyey wixii aan toodaa galow jiray waa kuwii yaman oo berigaa cadan ahayd oo shuuciyad ahayd iyo ninkii ohan jiray fikirkaa sare oo yimid iyo qadaafi ee la yidhi ka noqda waxaa adii migistay labadii aan toodaag baa tiine jooji waxan waa kii ina soo mari jiray Fidel Castro iyo ninkii markaa haystay yamaniyo waa tii tiine waxba ka suurtoobi waayeen aakhirka waa tii dee 1500 kuubaani iyo bridgekii ugu weynaa afrika ee uu sameeyey ruushku waa kii 7 cisho gudahood boqolaal taangi kusoo qaaday diyaaradaha GT tugalayda ee ninkii jooga markaad soo qorsan badda cas waxa kasoo socda waa diyaarad ruush u ahayd oo ka soo yin deetana xoogii ruushka iyo ciidankii kuubaanka iyo dee cadan oo berigaa ahayd ciidankaduna lagu yin berigaas oo soo kordhisay dee waa kuwii si wacan laynoo yin dhabarka lanooga jabiyey inagoo marayna adisaba agteeda oo ciidankii ilaa halkaas ballaariyey waa tii jigjiga baashan soo degay taangii lasoo daadiyey kaalamaro hoosteeda biyo cadda xagga dambe laga soo fadhiyay shanta waddan tii dib nooga xidhay dana waa kii habqa ka dhacay dee marba hadduu ciidan jabana moorasho u dah mar hadday dowlad ciidan xoogii oo dhan uu jabay soomaaliyana markaa qaranku wuu wada galay mar haddii la jabo waa la ishaaraama dan baa looga lahaa iyo dagaalka maxaa wixii baa dhacay waa la ishaaraama waxaan markaa anuu weyn in yarkaa odhanayaa inqilaabkaa ciro allah u naxariistay nin raggii la laayay la dilay ka mid ahaa
ayaanu laba guroo isku xeeg ku jira waay dabeetana ninkaasi waxba imu sheegin waay inaanu gaar isu naqaano reer Hargeysana waa dabeetana nin qaajaa loo jiro ciidanka cirka ayaa habeenkii wax dhici doonaan aniga oo fasax ku jooga muqdisho iyo yimid dabeetana wuxuu igu yiri inqiraab baa la samaynayaa waa sameynaya hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaanu doonaynaa markaa ciidanka cirkan operationka ku sima karay waay waay markaa waxaanu doonaynaa inaanu tagno daafeedo ay hawshan hawl aanad hore usii ogeyn oonad waxa ka maqal hebel iyo hebelkan sheegsi berigee baan kuri wuxuu yiri Ismaaciil Cali Bukuri iyo hebel iyo hebel bal adar iyo ma aqaan ninka weyn maxay doonayaan kuwaas iga bilaystay halkii shirka hore ka aloo xisa cirro qula fadhiyo laba saddex nin kale oo aan garanay waay oo meel fadhan saasheed uga eegan waay waan iska noqonay nakemiro afgooyu sii mariyay meeshii macallimiinta waay nin aan waanan garanay isagoo garanayay marka qaaja waxay isu dhawaayeen baan reedintay waay ama Cabdullaahi Iswaan kale waay ayaanu tagnay macallin wuxuu xankii wala hadlay waxba ka suurtoob waayeen waxaan tagnay daafeen nin imika magaciisii aanan garanay oo magacadag lahaa naana sahaaba kuwaan markaa ayuu uga yeeray kuwaan markaa waxaa jooga Axmed Mire waay waan garanay wallahi haddaad iska aragtay waxta hor maxaa jira waay isagana ma jooga ninka loo hadlo haddana uu soo noqdo adigu qalcin waa warwareegii aan soo galay saddexdii xamar iyadoo jidka ay xidhayaan waay qoladii nagala ku dhigaysa waay adeer anagoo safrolay waa cabdi qaajaawodina wareerisay ayuu agooday soo dhawaaday qoladina iskala ballaarisay waay waxaanu shirka obshaalihii waay ileen meel gurigiina waa fogyahay waa tan wadada kale ximbi adka tagi maayo moogtahay ninkan la yidhaha George ina Cismaan indhoole maxamed Cismaan oo qol ku jiray meesha ah ayuu ku garaacay waay oo gaarigiisa hor yaallo kiiban oo seexno tim warqaba dhaca ka meesha isku xisaab maxaad ka jib wallah kaanu gashan gaari sharan ful bolisoo gaar markaa waaga bari 7 meelaad 7 mar saxabadan way dhacano xaggan Morgan iyo qoladii soo bilowday Cabdullaahi Darawal iyo inaa shaqale iyo qoladii tababarka la haystay askari iyo waxa soo bilaabay waay oo dib fad ma fiicno dul maraysa waay anna xalayna waa tan waxay rugaysaa waxna ma hayo waxna ma garanayo marka dhanna waan ka yardaa distan hado ninka badan muxuu deeyn ku waday marka hore wax la maxad haysaadaan waad qosol wuxuu ka dhacay aniga iyo taato gaariyo xuno janta oo haysago maxaa la jiray janta fatiga miyaha wada taato aan ridda saa hore u marayno ayaa maxamed siyaad baro ka koonsanay waay afka hore ugu qaadan gaaray iyo qaar daba yaacaya waay ilaa markii hore waxay naahayd mugti guutadii taanka inankiis joog jiray xagga ka shir kora ayuu dalqeeyay waay dadna xabada wadhan walba bilaawtay waay bog meesha shirkada iska noqonay shirkada iska noqotay ha waay dhan baa xoo dhacay gudbaalaya duurkii waa la kala beermay duurkii waan isku hayn tana wati aad isu raad jiro adigu waxa la weydiiyay waxyar uriyo qolay wax barbaaris waxa weyna maxaad wadeen baa leeyahay ma ya inka maaha ma iska tagay ciidankayga ku noqdo dawr iska shaqo tagay laakiin 20 cisho ka bacdi ayaa qolay wax barbaari jirtay maxaa loo jiray wardoonkii wax ayaa ciidanka cirka iyo yardiida habeenka xagga joogtay xagga ku maqlaydiyo waxa la xisaabiyay intii ka maqlay xirada askartuna dib bay qabtaa mar walba way ku sheegayeen xirada way ka dhumataa koodu waa niman deexran baa nahay mugti dee xamaro dhalaal sanaad inta ku jirta waa lagu jira marka in xirada laga helo muddo saacad walba caruur wixii xagga ka jira markaad sidaada birita shaqo ma jirta wada dusisa dadna inta yadi bila sharci ku maqnayd ayaa dalaha dadna aad waxba ku joogsan way laakiin ragaan saaxiibada ninkii guriga aad ku jiray iyo ragii laayahay qaacana wala xir ninkii habeenkii dhawtay saaxiibada dhowr rin bay la tagtay maxaa dhacay markaa kadib saluug baa yimid dadkii waa tii saluug dee wax badan keen saluug waa taa ku soo lixdii ka yimid way anagu markii dambe dee markii saraakiisha lahaa waxa la arkay meeshii inaan shaqo lahayn in badan baa hadal iyo wax toosin iyo odayaal iyo dad badan hadal dee way socon weyday deetana waxa la isku qanciyo la gaaray baashan gacan ka hadal mooyee inaan waxba kaga toosin deetana xawar baan ku tashanay
rag badan oo saraakiil aanu ahayn ragga odayaala noo madax ahaa waay oo anagu dee dhalinyaro markaas maxamed halac oo kale reer waqooyi baad haydeen markaa idinku anagu markaa waqooyi baan isku maydhan oo aad isu maydhateen haa waqooyini baad u hadlayseen markaa waqooyini baan u hadeen waate maxaad goor bay waxaa noo dee waa 78kii waay 77kii aan bilaabay xamta waay waayo waqooyiga dad taariikhdiisu uu waxdiidan yahay way soo badnayd waana ku sheegayo 60kii bay qaldantay hadalkii baa la xidhay waa ki saddex ilaa kiibadii waa kuwii cigaal iyo dee iyagoo mucaarad yimid ee SSC furu jiray geerada ka jiray waa tii xasankeedii ka horreeyay la dilay waa tii neere la dilay waa tii dee aad la soo jirjiray dee waxba meesha ay noqotay oo meel la qabsaday marka adigoo ardayga ka baxay camuud ama sheekh lagu yiraahdo xamar kaale ee dhexdana aad wadi waxa mari jiray shiftaa jirtay imsa in baa ku dhintay la dilay oo gaariga dhan xawshada ka dilaysay marka laba kontrabaan qaraxnaysay dhexda libaax gaari qalima inta halka hadda cid ku nafsad marka xamar tagtana wixii naga qabsaday dad buu joogad wax ila adigu markii dambe xawaan la tago waa la noolaadee markii ka horreeyay xalaanay dee waxba ka dhacay magaalo weyn oo inay ugu soo tuuray wad garanay cid joogtiyo cid iyaa ka celiya adoo gaajo ka xoto ku qaday baad ilaahay dhan kaaga celiya kii baasaboor doonaya kii laysan doonaya kii muraad yeesha adigu dadku xanaa muu yarayn hawsha waxa la wixii dalka laga dhisay mashaariic adduunka lagu caawiyay 83% koonfur laga dhisay hal warshad iyo hal il dhaqaale wadada yare laamida ah iyo bridge-ka Hargeysa iyo warshada isbirku goor dambe ahayd ayaa kaga soo baxay marka idin saddex ka sano wixii dalka military ahaan ba isu tusteen idinku markaa maya orada sheekadu siyaasad kala idin weelisay oo jiray oo waa la isku xidhnaa grassroots baa waxay waay dareen dadka ku diya joogay ku guda jooga saddex meelood baa arrinka socday jidda oo rag badan oo siyaasiyiin oo miisaan loo ka duday waxa diiday ay shaqo ka helanay carruurta korsadeen waay qolan la joogtay waay oo arday iyo siimaano iyo siyaasiyiin hore halka deganaa iyo intii gudaha joogtay hor saddex meelood buu kacdo ayuu asalaamta laga asaasay iyo asalaamta hawsheedu ka bilaawday anigu labada kale xogaalo meey waay tii xamar waa loo dhamaa waay kow asaaska koobaad Ismaaciil Cabdi Cumar Carti baa lahaa oo ay ka soo fidisay waay ragga iyaga la soo jiray jira annaga gaargarin jiray waxa kamid ah Maxamed Halac ma kamid ah waay lixle waay aadan shiine waay Allah yarxam horta raggaas ay raggii wanaagii anaga isku xidhkaysa maxay markaa ma sheegay muxuu ahaa marka heshiiskiinu ma iska dareen uun iska buuxaa mise waxa go'aan ku gaadhsanayd inaad meesha wax ka qabataan ma wuxuu ahaa go'aan siyaad barre iyo raggan iscugtay 10 ah ee 20 sano soo heesaya inaanu hadal mareyn gacan wax laga qabto weeyaan in la iska celiyo mooyaan marka sidee loo helay awood la iska celiyo baa laga hadlayay marka idinkoo gobola weliba reera ma waa heshiiska gaadhsay ma waa sicid kale idinku jirtay ma hore wadhamad Somaliland waay wadhamay marka hore markan dagaalka uu qarxay baa la kala beerbeerayaa oo dee siyaad barra dagaalamaya oo ragga badla soo haraya mid qabiil kula soo haraya oo mid wax ka sheegay oo wuxuu doonay hawl yareen markii hore waa loo dhamaa Somaliland waa dhamaa marka hore marka ma waxad go'aankiina ma guuxaasi ma wuxuu ku saabsanaa inaad goosataan dhulka waqooyiga mise inaad maxamed siyaad barruur ridaan horta marka hore ereyga Soomaali waxay ahayd in la doono erey baa la isticmaal jiray aan kala rahayn waay in la soo celiyo gobonimada iyo xuquuqdii waqooyiga Somaliland waay eego erey imika hadii la xaq u jeeday waay erey daahan isweydiin leh markii aanu isla tagnay in badan baa la shiray shirar badan baa la soo maray sida loo baxay laga heshiiyay kaad horta hayra gaadin asalaamta intaad xamar joogteen iyo bilowga ahaa intaan la joognay waxaad heshiis ku ahaydeen waxaa heshiis lagu ahaa ka weyn in maxamed siyaad dalada khidaamiyo jiray waay waxaa jirtay oo aad looga fikri jiray in la yidhaahdo ha la soo celiyo istaaskii reer waqooyiga Somaliland xuquuq baa ka maqan oo dowladdii ay isticmaalka aan ridin mid ka adag baynu galnay aan xuquuqda soo dhacsan kolka ereyga xuquuqdan soo dhacsan define ma ahayn aynu gobonimadii dib u doonaa lagu carabka lagu dhufay ya aynu ku dadka xoreyna gacanta ku jiray laakiin wuxuu ahaa kacdo ku wajahan Somaliland dowladnimadeedii xuquuqdooda ku lumisay
oo isticmaal cusub Soomaaliya gashaa inuu dib ugu celino intii uu celina way maxaa dhacay markaa kadib ragga arday baa horta ma arday waxba ardaydaas way damayn tahay horta waa la haloosii way rag badan waxay yiraahdeen waryaanahan Ethiopia oo tarshan la dagaalamay naxariis noo haysay inaan tagin meel aan halkan gudaha wax ka sameyn كويس كان شعرها بليه آخر كنا نوفمبر أما سبتمبر هذا مو يعني أيه واحد يقول سي انقلاب عن سوينه أو قبلنا قوي قرنب واي وحيرجع كوفر شوقي هرت مركز قوي واحد بدنا وقوي واي حاجة صار كوتوي كنا وقوي هاي وصلت سبكي وحي كده ميعي إذا ما دي فترة هاي عينك شوقي هرجيسة بقول كيف استيت ما هرجع هير هو قوي كوتوي كنا رأيي هاي واي توش سرحان يا أفريقيا ما شوقي wixii xaggaa waqooyi joogay koonfur ee loo baahnaa fasaxa helo waxa ku warwasooda iyana hargeysa soo wada galay way rag badan baa hargeysa fasaxkiiba wax nool iyo dhintay bale haddana lixire iyo raggii deen hogaaminaya shiinay weli noqon weyd markii muddo joogay haddana waxa la yidhi may tan mas-uul toobiso oo khasaaraha badanayo saana u dhacaysa xamar baa la tegey way waxaa la isugu tegay sheekhi shariif baax mushtar odayaal waxaa ragga aad arrintaa aan shirka noogu badnaa alla waxaa musa galal baa kamid ah way iyo darilooda way cabdi jaamac xaydkii hodheelkii lahaa hodheelkii Sinai rag wadaasha ku jiray dee hebel baa ka qaban odaygii loo jiray dhuxun ku reeb ee berbere keemi jiray uu dhintay allah in xaaj jira dee rag waaweyn aniga markaa aan deesba gaari jiray leena yar baan markaa waxaa lagu haloosayay ilaa inuu jabhad sameyno oo ciidan sameysano oo qorigaasi aad ragga afka kaga ay qori loo helo waxay iska celin karaan yalla waxba la iska celin saasaa qoladii saraakiisha yareer markaa ahayd dhalinyarada ahayd aad loo in leedi ku tirtirtay oo maskaxda la dhigo way ma duruuftaaba ahayd bad duruuftaaba de waajib ahayd baan loo xaq ahayd baan leeyahay ka weyn wadacad baa ahayd oo ummadda hadii kala badbaadeen dabeeto waxa la go'aansaday in la baxo marka duruufan ugu horeeya weey Ethiopia shir wala istiri dadkuna wuxuu ka qabaa taabuuy cudud Ethiopia inuu gala waa islaam oo xagga diinta laga eegay mar cadaawad hujrada kiba laga eegay tasaxad jabad kala kaasi horeysa idan heshiis hayn Abdullahi Yusuf jabadii sameeyay tiisi waa taagan marka haddaad ku biirto inaad ku biiraysaa sood gala maraysa waa su'aal kale dee waa tii la baxay ilaa dhamaan waxaan ku sheegay horta asal halkan laga dhawaaqay ha ku sagaashankii koob iyo siddeetankii waxa weeyaan laamihii kale ayaguna iskood shaqeynayay laamihii kale ayaguna oo midaysnayn saddexda laamood ayay tii halkan iyo tii jidda mid way iskaashanayeen oo warka way isgaarsiinayeen laakiin unified hogaanin ka dhaxeeya muujirin markaa laakiin halkeeda qolay markaa halkan dhawaaqa ku samaysay waa kuwii go'aansaday inay tagaan iyagoo kuwan anaan ogeyn inay dhawaaqayaan laakiin dhaqdhaqaaq dusha socdo ayaa xaggaa waxaa lagu wareejiyay xilkii saraakiishu inay abaabashooy arrintaa marka lix rabo madaxa shiina ku xigay annagu eshaloon ka hooseena labada aniga kaahin rag badan dayib allah naxariistee axmed mire oo markii dambe dhoofi doonay sigay cabdisamed baa midna koolas qabtay maxamed cabdi isna u baxay axmed mire rag badan oo imika dee musa nadiif allahuma salli calaa maxamed digolin soo dhintay way badan raggii aadan salaabaan nin isagana loo jiray food oo markii dambe loo wareejiyay howlaha guud food mar arrimaha dibadda u joogay waa loo food ka arrimaha dibadda waa isagoo anagu nala socday uu joogay nin food oo jira howlaha guud loo wareejiyay masha allah markii raggii la shiray waxaa la go'aamiyey Ethiopia loo baxo jabhad gaar ku gaadheen Ethiopia gurigii loogu shabada ka kamid ahaa waxaana la go'aamiyey in jabhad gaaraan la sameeyo waqooyi taa Abdullahi Yusuf ee koonfurta aan lagu biirin waa nagu hadda xamar joogno oo waxba hayna ragga soo u baxayaana waa la qorsheeyey mid diyaarada saara iyo mid ku baxaba sidii loo kala horeyn lahaa si loo tigi haye sidii kuwa boota kala bixido dee waa tii la baxay inuu Soomaaliland u badan ayna dee rag badan baa kamid ahaayo ay kamid ahaan Ciise Soofa iyo Siciid Cali Giire iyo rag badan oo ku dee baxay Soomaaliland waa u dhamay Cabdiraxmaan Cali Waaki xaga ka yimid
horta de sidii baa sidoo saasaa lagu baxay ha rag markaa jooga okay adigu markaa anigu goor markaa markan lagu diray horta waa la xidhay waay markii arrimaha la waday ma lagu xidhay ha waay imsadii baa lagu xidhay eri tuugii ahayd baa Labiyo siddeetan. eri tuugii ha waay waa tii la oran jiray berig saraakiil badan oo tii laga soo xaaqay laga soo kaxeeyey waqooyiga haa aniga nin qamar ilaahdo laba miskiin oo meesha iska joogno dembiga ma lahayn maxaa oo isna aanu markaa diyaarad shabeelle ku duulay laga joojiyay diyaaradda shabeelle ahayd buu waxaa jira anna ciidan diyaaradyaana qaarina dhammaadeen oo xafiiska arrimaha dibadda xilka karaan yarka ah ayn baa waxna soo galay buu heebana la qaado waay rag badan markaa la xidhay rag badan ayaa waxay ragga saraakiisha la xidho berigaas laga qabtay dhowr iyo 20 baa xamar laga qabtay waay axmed cabdigan cadda kamid ahaa waxa samakaab baa kamid ahaa maxamed hebel samatar baa kamid ahaa dhowr ma yareen marka raggii berigaa la qabtay anigii niraa ee qamariyaha waxba raadan lagama helin waay in yar baan ku xidhnay halkii military police 3 bilood iyo bar meelaha 4 bilood meelaha waay laakiin raggii kale maantaana laga qabtay min 10 sano ama 8 sano dhameeyay dhammaantood waay aan cidina maxkamadda geyn cidina aan la hadal annaga se maana dhaafin halkii military police wanasbana rag badan baa noo gurmaday oo markaa raggii xilka hayaa oo kamid ahaa ninkii imaamka lacagta hayn jiray loo jirayiin cabdillaahi kaahin cabdillaahi kaahin aad iyo aad oo dee maadaama xarunta shaqeynay iyo rag badan oo kale ayaa dee cali samatar ilaana la gudbinin ayaa aad noogu dacweeyeen dadna nasiib wanaag iyo nacasnimo waxaan ahaydba sax laaf loo xidhnay baa nasiib wanaag waa laydinka daaya idinka markaa kors baan tegey haddaba waxa kaa sheekeyna sheeka fiction u eg laakiin runa oo markii dowr rumowday oo sidaa aan ku tagay korska ahayd waat anuu eg dawladda ka shaqeyn jiray nin aanan garan nuur iyanu dhintay oo nin fiican ahaa oo guutaala odhan jiray guudle ayaa noo ahaa karaaniga taybka garaaca waay xafiiskayga waxa bixi jiray waxaa lixii militariga dibadda u baxaya anagaa maamuleynay hadduu kors yahay hadduu wafdi yahay wuxuu doonaya haado dabeetana waxaa taabarkayta in la yidhahda inaad libaaxsa ka taabto jaran ahoo iska taabto badaa waay kors bayaa soo baxay waay anna haddii ilahay xabsigii iga soo daayey haa oo raggii kale akhire loo diray haa waa inaan booda dabeetana waxaa lasoo garaacay rag kors loo diraayo waay korsyadii lasoo diraayey ee meesha laga gudbinayay mid laba kamid a banaanaa habsan laga ah waay markii warqadii ay ka soo dhamatay jarankii haa ayaa booskii banaanaaye ila waan ognahay inuu boos banaan yahay haa ayaan guutaalo ku heshin inankaa isku qoro waay 40 musax Soomaali forsidii haa 5 ku dhamayn waay way kan gashay waa in 4 saacadood gudahood baasaboorka ku yahay magaalada kaga baxa waay ilaa hadii kale waxana way isla dhaalaysaa way falaalta waa la ogaanayay waay marka waa dabka ka cara dabka ka boodistida oo ku dhac dabka noqon waan baqaraya in la xiro iyo khatar baad ka caraysa haddii se tan la waayo proof akhra lagu sii diraya magaalada ka bixi kartaa baa markii la soo daayay xitaa hawiyada iyo bugta ma soo gaari kartid oo afgooyay ma dhaaf kartid balcad waraaq baa naga taala marka waa fiski meelada ka ciyaarta waat markii warqadii aan sida ku dhamaynay madaxdayda waxay yiri ma oga waay waa inay guud waa kacandiido faamil Cabdullaahi Yusuf Buha waay ya adagna waa ku daba garamay aan ku dhamayn waay marka hadii ana qaaday ila ana horaba alisra safarada markaa qaaday haa waan qaaday waxaan geeyey safarada ataajigi koorska ka soo qaaday dee taraninkii Mareykan jiro waxa ku dheysay baasaboorka dee ila waan ku jira koorska waa tagay haa baasaboorka soo qaaday marka taasoo qaaday waan aawar cadiyarada Soomaaliya yarlay haa waa ibridi haa kuwa kala soo bixi doonaa haa diyaaradiina waan raacay markaan tagay waxaan sii labisay dharkan dhaagnaalaha qurux aroosyada saraakiisha ay ku tagaan xafladaha dhaagnaal baa leedahay haa kaasaan ku taagay waay way fitriha ila ciidanka cirq baan jiray soo maaha waay ilan ka hor isku qaaday fitri haa ayaan ku taagay waay Allah xariisan in aara loo jiro markii dambe Hargeysa ku nimaadna tugida ah waay aara loo jiro u dhintay
oo ree oo awdala ayaa shaqada hayo dhowr jeer hore meesha isku dhaafnay waay oo debriga waan sacad doonay safrada xadka jiray mugti waan salaamo kula soo caawad xarawanaysa saan ku dabcan diyaaradda waan galay carada leys baa duulay waay qolada ma fiishkii aan dad dawlad ka naqaan mugti warska salaamaya hawl ma jirto markaa anigoo ka baxay albaabkii de immigration wixii dhameeyo dhaafay aray qoladii noo isku dahay oo diyaaradda hoosteedii maraya oo markaa degan barwaaqe maartay waxaa ku hagaagi ha lacagna $20 baan haysta $20 dan kibri dan marun xabsan ka boodo ayaa waxaa laga soo lay koolay gaaro istawaayacaysa waay diyaaradda salaankeedu ku socda mugti waa cali samatar waay waa ninkii oran jiray muxuu ahaa qufacdiid waay waa intii ilaalinaysa waay waa mariino waa balaayadii waa halka taagan ilaahay wuxuu galay inuu baasha cali samatar raacayo waay iyo waxaan la socda waay hadii la hado markaa saacadda waa qafla baabeen waat haddaad raacdo koreen xaggeed socota waxa ma haysan haddaan doqoto kaaga darano waa isla halkii dabeetan naftu marabay say doonto biniaadmu haddii imika xaggan iyo xaggan wax naga soo baxo xaggii hore bilotaasha ayaan deg deg u koray sax orodkii fariid tuyarana arsaa tirin xaggeed socotaa ma calayo ma hebelo de ilan bilaas way cashada qarax war isku qaado horaan dha صح بريال سالم كلوجا بقدر أرجع ديارة عندنا مفتوح تشرين يرى فلسطينيين ويبقى بدر مجرين دي تدرب لبسوا آمن وان تاجره صح رحلة استاج قال بصوت قلي شو ما بدو فيه اسمه ما بدو فيه وحلا قاضي يا شيخ الشيخ صوفي لورنشري وقف عديد صدقوا آيا شو حنوصل فارق حروفته واي ما كان شيخ يسوي يعني يعني يقوى بس ما يصفوا لنا هالكلام كنا نقوله واي ما نبي نحن تاجر موتي waad eegaysaa daaqadaad ka eegaysaa ha xaggii baabig hadday soo galaan xaggee kale ka deg waay soo furiyo oday hablaha wareysan neer taa dadkii meesha warayay adigu xaggee taagtay ilama had karo dadka kale bisan bara marsa waxa sheekh suufa xanuunsanayo xanuun badan alxamdulilah ilaah sheekh caaf ilaah sheekh caaf ilaah sheekh caaf ma hasiir laqsad ducays dimo xal ducayn ba soo sheekha weliga ama karamo dadka quraanka baray inankiisu dadka quraanka baray ilaahay barakay raadka qabow ya adnood qabowdi markaa soo balaadiga ma celin saasaday wardi ku raacday saasaday ku raacday halkay kula tagtay markaa room bela fadhiist waay dabeedna maraykan 8 saacadood baan ku jiray $20 in nasraftay in iska xajistay washington man ka degay inta telefoonka iyo in taxi gaari abaarka tareenka i gaari kartaan ilaa meel hore waqaanay warun ayaan xajistay dadna qolo meesha joogtay niman walaalaha markaa uu dhintay imka beriga noolaayo rabbi kale telefoon diran halkaan jooga waa yaabe ma ku dad soo baxday walaashay war soo isug markaan laba wiig joogay aan koorsi xareystay aan de ilaa waxa wada legal iska tagay ayaa waxa safirka maxamed xaaji nuur waay maxamed xaaji nuur isku fahmay waan waan xagan kala soo dagbiye yadda xaaskiisii oo musqulana deetana waa la soo dhaweeyay inaan wanaagsan maana islaanta maxay tiri ceebteeda waa nin yaqaana cidoo ku sheegi afar xiska bacad iyo soo lacbaan waxaa faagas loo jiray ila beriga ma jirin telefoone la leeyahay ninkaas soo fakada soo qabto soo celiya oo markaa iska soo celinay odaygu igu dhici maayo dawan iska aamusay odaygu ma wan sheego waxaan ku oreeyay ma waxba ma waa sax waa laga gardarayay koorska dhamaysanaya de waan noqonay idin baan soo yarday in wanaagsan man iska dhigay sax odaygana wuu iska xishooday war uu dhamaysanaya uu soo noqonaya aamus hay wuxuu ma noqonaysaa ha baan ku oreeyay anuu markaa inay beeniyo inay nafta dee xalaal tahay beentu ma kala garanaye odayga isdagaana waxaan u sheegay waan soo noqonaya halkaa igu joog qaybta hore ee barnaamijka xusuus reeb oo marti noogu ahaa muuse biixi cabdi intaa haynoo joogto qayb labaad ayaanu bilownaynaa muuse waxay u taagan tahay isaga oo ka baxay soomaaliya oo markaa 1982 ay tahay oo inta la xidhay lasoo daayey dabeedna asxaabtiisa intii badnayd ay go-aan ku gaadhay in dalka laga baxo oo markaa isagana ay u suuro gashay inuu maraykanka sidaa dhuumashada ku tago iyo waxbarashadaas